waxaa la yiraahdaa Xakiima Abuukar Axmed Maxamuud صح waa sida saxda ah iyo sidii aan ku soo barbaarnay hooyadeedna waxaa la yiraahdaa Xaawo Maxamed Jimcaale Xaawo cad ku magac dheer ما شاء الله انت اسكو براتين حتى حاكيمه waxay leedahay aniga waxaan ahay reer xaaji bootaan marka maxaa ku cadeynaysa inay reer xaaji bootaan ahayn iyo abaayo waxaan ku cadeynayaa cadeyn uma baahna abaayo qof walba qof baa dhalay صح qof walbana caa'ilu ka soo jeeda صح aniga ayada waxaan ahayn saaxiibo isdaba socda صح laakiin se ma aanan ahayn walaalo isla dhashay صح waxaan ahayn jiiraan isku dhow oo xaafad isla degan xaafadaas qof kasta deganaa habar gidiraa deganeed abgaalaa deganaa isaaqaa deganaa madhibaanaa deganaa ma fahantay wax qabiil ana ma aanan ku korin annaga ma fahantay gadaal dambaaba dadkii qabiilkii loo bartay markii la qaxay waagii hore mabaanis aqoonin waxaan isku aqoonay reer xaaji reer abuukar reer caydiid reer qowdhan saasan isku naqaanay reer hebelaan iska naqaanay dadkii waagaas joogana qabiil maba aqooninba annagu qabiilna laguma soo korinin waxaan ahayn dad walaalo ah oo ilaahay ah oo jiiraan ah oo isjecel oo isxariiriya oo isku taga oo isla sheekaysta oo israaca ayaan ahayn aniga xakiimana kuma jirno waxaan ahayn dad best friend ah ciyaalkas markay isla kacaan soo inba isma raacdo aad iyo aad inaa isku dhow saaxiibo noqoto sax haa intii isku dhaweedo isku sirta aheedoo warka isku qarsan jirto israacraaci jirtay dhalin marka ayadoo oo maaragtay teenager ana waxay ka dhooftay iyadoo weyn oo 20 jir horta mayna dhoofin iyadoo 18 jir ah ayay ka dhooftay garoonka Muqdisho صح oo uu dhoofiyay nin Mareykan ah ay u shaqeyn jirtay صح iskoolkana waa dhigan jirtay wayna shaqeyn jirtay shaqadana waxaa geysay haddaanan qaldanayn eedadeed ma yaha habaryarteed oo Zaynab la dhaho ilaa anaga waa isnaqaan waa isdhexgalnay waxaan dad isdhexgalay oo gurigooda tagno ka soo shaahayna oo gurigeena tagno ka shaahayna oo caa'ilada is yaqaanaan oo aan isku macaan dad aad iyo aad isku bartaanay صح ma fahantay aad iyo aad goormay marka arintan kugu dhalatay goormay arintan kugu dhalatay ood maqashay inay gabarta reer xaaji bootaan ay ka tirsan tahay oo xaaji bootaan familkiis waaye ood maqashay ood kala kulantay as famil ahaan ها ولا شيء هرت إن كنت لا شيء وفي عن تهاي صح إن واحد يسكت درا أو إلهي لقفت أنا معها أنا قد إسلام أنا هرت الصومالية وناي صومالنا ولا هالجنبري بفتسا صح ما فهمتي وحنا نهيدد عقيدة مسلم هايستانها وإسلام صح إسلام كانوا يعرفون الشيء ولو كان مرة حتى قرار تاي حتى ولا الشيء هذه هذا صح marka walaalo waa tii la kala qorta xakiimo aidkii ayadoo 18 jir dhooftay ay wadanka ka baxday Mareykanka u hayaan صح walaalo isugu keen dambeysay en 89 kii baan war ka helnay ayadoo markaas waraaqa yar yar dadka u soo dirto dhahdo aniga Canada Mareykanka waan ka tagay oo adkeysan waay reerkii marka waxaan galay nin Mareexaana i waday سفارة الصومالية قراعي قبل يروسا وسفارة الفدية إلى عربية أنت كوكانو إسكو أويي تينيجرته مركب ولا هذي وحوجي ماشى اللي يراهدو كندا صح مركب ساسي كندا نكون بش كندا ساسي يكون كشيء عد مريحانة وضطي ونين مريحانة وكشقين جري سفارة الصومالية أي بوق أيدو فتشي سكه الشيء من كاسي لهذا الشيء واحد تري محل لها dad Mareykan la jooga waa fahmi waayay
iisoo orda haddaa kiisa qaarda Soomaaliya صح din mareexaana u cararay oo meeshii ka kaxeeyay dhiig Soomaalidu soo qaaday Soomaalina waa walaalo markii oo cadow uun haysto waa iska ridnaa qabiil kasta aan ahaano هذه ninkiiba yiri waa cunug yariis ah ilmihiisoo siyada la eego ku daray ilma yarna markaas way ahayd oo qof 8 jir qof weyn ma aan هذه sidaas wuxuu ku galiyay Mareykanka halkaas wax ku baratay markaa jaamacadeedii iskoolkeedii waxeedii ka sii wadatay marka sheekada ayadoo nooga sheekaynaysa oo waraaqa noogu soo qoraysa haddaan Canada galo isdiibay sidaas ogaada oo reerkoodana la soo hadlaysa ayaa iigu dambeysay aan صح dagaalihii ugu dhacay baayo dagaalkii waa ogtahay habar iyo habeenkeeda noqotay qofba meel uu ka baxay هذه adduunkii abaay waa la kala cararay aniga carabahaasaan nasiib u yeeshay inaan galo صح halkaasaan anigu ma aragtay ilmana ku dhalay iskana joogay xakiimana waxaa maqalkeeda iigu horeysay 2014 صح ma fahant هذه markaasa walaashay gabar abaya ila soo hadashay oo igu tiri xakiima ma taqaanaa haayaan ku iri xakiima si uu aqoonin xakiima Abuukar waa aqaanaay ee xakiima Abuukar lama dhahe suge xakiima xaaji waaye هاي saay dadku u yaaban yahay oo reetookii u yaaban yihiin u yaabay waxaan ku dhahay maxaa ka qaldan xakiim yariis yaa dhaa Abuukar Axmed dhalay say wax u jiraan tawarka iska daawaa saasan هاي marka 2015 ayaan imid waqooyi waxaan imid ii sheeg meesha leeyahay hargeyso ha waxaan soo dhawaada walaalayaal bal sheekadii iiga dhaca xakiimo صح xakiima la iiga dhacay waxa la yiri waa xakiima xaaji wakaasaas baa jira waxaan ku iri waa qaldantihiin صح way iga diideenoo Sahra Abuukar gabar la yiraahdo ها Sahra Abuukar Axmed oo walaasheed ka yar ah ها ayaan waxaan iri maanta Soomaaliya joogta Hargeysa xamar way isku mid صح roobaan noo da'ay hadaad qababac noqotid iga raali ahaawiya dhib mala si fiican aan lagu maqlaa dhib mala wado marka waxaan iri gabar noola timid oo carabaha anagana aan ka wada nimid aan raadiyay raqamkeedii waa helay gabadhii ay iri Sahra Abuukar ii raadi ama Riyaa Abuukar waxay tiri Sahra Abuukar ahaaya raqamkeeda isiyaan ku iri Sahra Abuukar la hadlay waa sanadkee mar isla sanadkaas ma Sahra Abuukar wacday oo 2015 saddex bari anoo gurigeena jooga saddex bari oo kaliya Sahra Abuukar la hadlay صح saddex bari bas aan jooga Hargeyso dhan haye marka waxaan ku iri Sahra Abuukar ay ma fiican tahay waraysi ka bacdi waxa iri abaay macaanto xakiima waxay leedahay xakiima xaajiya la dhahaa faaraxe ha reebotaana ay sheegaysaaye walaalay xakiima yaa dhalay haye هذه way qosasho waxay tiri adnama igu dheedheer rabtaa waxaan dhahay wallahi kuguma dheedheeraya taariikh raadisaan haye bal warka la ii soo daayo ma anaga wax naga qaldan yihiin ma aabaheeya dhalay ilaa aniga xakiima waa la ekoo goortay dhalatay ma ogeyn هذه goorma la dhalay صح masaxa waxaan la isla wareegayo ma ana xaaji maxamed aamis waa ina Abuukar ina ii sheegtaan waa ii shaqay صح Sahra Abuukar waxay tiri hooyaday qaracan waaye warkaas ee maqashay xaaraanna waaye aabahay curadkiisii waaye xakiima Abuukar Axmed ana la dhahaa walaalay waxa wadiin iyo wabiga yaa weyn haye waa faanta Soomaa waxaan ku iri intaas aan rabay hadaba ninkaad haye intiyan ku noqday صح waxaan ku iri waryaada soo jeesta haye albaabka
روبا قرر عليه dhib male waa lagu maqlaa waxaan iri waryaada waxa ku sugantii waa baatil ka joogsada reerka aan jaarka ahayn dambiyaan laga gelin صح xakiima abuukar axmed la dhahaa صح may maqle aad iyo aad marka waxaa lagu yiri aamino oo waalan oo yaman ka timid oo xirxiran ayaa noo joogta jaarkii dadkii lagu yiri adigi yani xaqiiqdii ka hadashay waa waaliya la yiri ها رشاق بالشاق واي runshaag ceeb sheeg waaye صح adduunka iga hor yimid waa la is wada dagaalay sidaasaan hargeysa inta uga duulaan waxaan tagay Jabuuti meel yiraahdo صح marka walaalay horta aniga walaashay sahra waa jecelahay waa walaashay iga weyn laakiin xakiimaan isku dagaalay xakiima abuukar aabbahaaya dhalay ka waanto ayaa iri صح ileen aabaheen ma dhalin صح ها waxaasoo kale waa masqara carabtu waxay dhahaan haadii masqara kalaam haadii masqara aad iyo aad ma fahantay waxaan ku weydiiyey Aaminoy yani reer xaaji bootaan meeqay ka kooban yihiin fikradda ma isla qabaan mase waa hal qof oo kaliya horta aabbahay wuxuu ahaa nin weyn oo 90 jir ah indhuhu beelay markii ugu dambeysay ilaahay u naxariistay wax badan ma kala garanaynin ma fahantay صح muuna dhintay sheekadaana bariyu ka yahay allah u naxariisto naxariistii janno allah ka waraabiyo aamin yaa rabbi ma fahantay waa waalid dhintay in been laga sheego waa been waa xaaraan صح hadalkana waxaa wadwada oo darawalka ah gabadha saare xaaji la leeyahay ayaa darawalka ah oo hogaaminayso baabuurka wada صح marka baabuurkaas yaa la qabo oo yaa la saaran adi ilaan waa ka degto dadkii maanta ayagoo quusteen oo meel ku ogeyn gabadhoodaaba usoo sheegtay maasha allah dadka kale walaalihii kale oo reer xaaji bootaan ku fikrad miyaa mase ka fikrad waaye walaalay horta anoo yaman jooga oo dadkii markay kala qaxeen taleeba fanna badan ma jirin qad meel iskala hadla ma lahayn sidaan wadanku ma ahayn iyo adduunku صح ma fahantay aad iyo aad marka anoo yaman jooga waxaa la yiri aamina way dhimatay aamina xaaji allah yarxam raaximiina yiri anigoo nool adig yaaba lagu dilay ها بعد markaan dhintay ka bacdi oo la leeyahay way dhintay ay dadkan Mareykanka iska heleen way isu soo raaceen burcay imaadeen waxay yiraahdeen xakiima abuukar waa xakiima xaaji maxamed barasho wanaagsan bismillah haye ma fahantay sheekadan anigu sidee u socoto sida adiga ka tahay aan walaalay ka ahay waa gartay waxaan ka yaabay weligaa ma yaabtaa waaba yaabkiise waxaan ku dhahay aabbaha marka weligiis xaaska lama guursaday intaa wax ka og tahay mase idinka samatihiin dad kale family mase isku family tihiin kala aabba maa tihiin kala hooyo maa tihiin aan dhehe mase kulligiin waa isla dhalateen abaaye horta aabbahay wuxuu guursaday naag gabar annagaba hadda naga maqan ayaa naga maqan haddaba oo nageeyo la yidhaahdo ma fahantay صح annaga hadda gabaraan raadinaa oo aabbahay dhalay oo nageeyo xaaji maxamed bootaan ah oo ruux iyo raax sida ay 14 sano iyadoo jirta loo waayo oo curadii aabbahay ahayd meel ay ka baxday maantada ma naqaano صح ma fahantay aniga hadda kula hadlaay markii la waayo waa yaraa hadda haddii la arkay u egtay xataa ma aqaanin صح ma fahantay xakiima markaas dalka ma joogto mase way ka maqleen marka gabadhaas la weynaayo xakiima ilmo yaray ahayd anaaba ilmo yar ahaaye curadii aabbahay waa naag kalaa dhashay gabar kalaa loo dhashay
hooyaday ahayn ayada way idinka weyntaa gabadhaas lala ayahay haa garta islaan kaleetaa noo dhashay ilaahay ha u naxariisto idin dhimataa u malaynayaa islaan kalaa noo dhashay oon hooyaday ahayn صح nageeyaana la dhahaa nageeyo ayaa la yiraahdaa waa nageeyo xaaji waa lala ayaa ilaa iyo hadda waxaa kaloo jira caasho xaaji iyo sahre xaaji iyo aniga oo aamina saddexdeenaasa hadda wax jooga leh iyo wiil saddexdiin marka hal hooyo ma idin dhashay mise kala hooyaatiin hal hooyo aan dhashay hal hooyo hooyaday waa hooyadii ugu horeysay uu guursaday aabahay naagtaan kale dib uu ka guursaday hooyaday wax ma dhalin kana u hor dhashay marka tii dambaa dhashay waxaa ii sheegtaa ma fahantay aad markaas kadib ee hooyaday ay dadkan kale oo annaga aan dhashay markay nagay dhalatay ka bacdi labadaas hooyaday iyo wuxuu isku qabi jiray iyo naagtaas kale aabahay okay naag kale oo guursada aaba ma jira naag kale oo naagtaas eeno aaba guursada ma jirtaa waa jirtaa wuxuu guursaday gabar haddaanan qaldaneen isaaqa oo naqaano oo magaceega oo kale loo aamino bila la yiraahdo aamino bile gabar la yiraahdo guursaday aabahay waxna umay dhalin way kala tageen sahra da'deeday ahayd gabadhaas sahradeena ila ekayd gabar yaray ahayd gabadhaas waxba uma dhalin markii dambe nin mareexaan ilmo u dhasho la iskuma hayo waxay u dhashay lama hayo gabadhana familkeena ahayd oo annaka wax isku ahayn ma fahantay iyo gabar abgaalana maruu guursaday gabadhaasna in yaruu aabahay qabay 70 iyo xoogaagii ahayd wuu iska furay waxna uma dhalin mar dambana waxba ma soo sheegan ninay iska guursatay ilmo u dhashay ma fahantay ma nooshahay hadda islaanta abgaal ma nooshahay oo meel ma lagu og yahay islaantaas abgaal ayada islaanta abgaal waxa waaye anigaaba jooga markuu guursaday anigaygan waa iska joogayba 79kii 80kii meelahaas ay ahayd waaba iska joognay ilma xaaji maxamed kulligood waa joognay qof ma maqnaa male ma fahantay aad waa wada joognay gabadhaasna waxba uma dhalinin oo waaba isnaqaanay oo nin kale guursatay oo xaafadda hool wadaagaaba lagu qabay kuna dhalaysay ma fahantay waxna nooma keeno oo ilmo ah xakiima abuu karo saaxiib aniga la ahaa oo aniga aqaano waxaa lagu leeyahay iyadina meeshaan la soo fadhiisanayso xakiima yaraanteedii maxay qaba jirtay ma nooga sheekay kartaa iyo qaabkay Soomaaliya uga soo tagtay maxay ka soo tagtay qaabkay Soomaaliya uga soo dhooftay iyo waxay qaba jirtay xakiimo waxay ahayd arday iskool dhigta galabtina iskool ay tagi jirtay markii ay xoogaa weynaatay ee qaangaar camal noqotay subaxiina waxay u shaqayn jirtay ninka soo dhoofiyay nin gaal ah u shaqayn jirtay gurigiisa shaqadaasna waxaa geeyay habaryarteed Saynab Maxamuud Jimcaale haddaanan qaldanayn ayaa geeyay oo markii la geynayo ani waa ogaa Saynab baa uur yeelatay waxay tiri habar qof kale ma geynayo ka sii shaqaysay inta dhala inta umushka baxay ninka sidii ula joogtay mushaar u qoray wuu dhoofay fiisu u soo diray saasi u dhooftay marka kartay maxaa kale oo qaba jirta maxaa kale oo iyada ay hobbigeeda muxuu ahaay oo ciyaartooy ma ahayd maxay ahayd Soomaali sporti aniga ayada ciyaar sporti aan ahayn ciyaalka sportiga waxaan ciyaari jirnay kubadda gacanta waxaan ciyaari jirnay binge waxaan ahayn ciyaalkii maxaa la dhahaa ciyaal ubaxa kacaankaan ahayn ubaxa kacaanka October aan ahayn ciyaal sporti aan ahayn anaga gartay ciyaalka sportiga aan ahayn ee dalka Soomaaliya ayadu laakiin Kenya la qoray ani oday xaajiya ay dhalay aabahay wuxuu yiri ka bax meesha uu iga saaray marka laakiin ayada waxay qoratay
jeey u ciyaari jirtay anagu laakiin degmada howlwadaagaan ku ciyaari jirnay uka meel la dhaho adigu inaadan soo gaarin laga yaabaaye wixii reer u ka away yaqaanaan oo ciyaal ubaxa kacaanka ah shaleema nasar shaleemada dhihi jiray meel ku deganaan isugu imaan jirnay ciyaal ukoo dhan qaar farsamo yaqaaniinay noqdeen qaar banooniya ciyaari jireen qaar binga ciyaari jireen yacni waxay ciyaalkii soomaaliya oo dhan oo ciyaal ubaxa kacaankaan ahayn ma fahmi aad iyo aad waxaan ku weydiinayaa xakiimo hooyadeed daxaawo iyo aabe ma laga yaabaa inuu wax xiriiri dhexmara noloshooda intaad maqal ku heshid amba aad ugu yaraan waxyaabo ku saabsan inuu aabaha iyo xakiimo hooyadeed wax ilaaqaada dhexmaray walaalay dembiga ma fiicno ummadda ilaahay in la isku gubana ma fiicno xaawo waxay ahayd hooyo sharaf leh hooyo qiimo leh hooyo qaali ahoo tusbaxa ilaahay haysata oo salaada tukata oo hooyo hilib qashay ahayd oo suuqa fariisata waxay ahayd hooyo odaygeeda abuukar uu qabo waxay ahayd caa'ilooyinka ugu sharafta badan xaafadda Tokyo ayay ka mid ahaayeen annagana sidoo kale aabahay aaba sharaf lu ahaa oday xaajiyu ahaa oday salaada tukadu ahaa oday wuxuu ahaa ahlu qur'aan ah ma suuroobayso oo ma dhacayso waxa kan waa been waa fake wallahi bilaa fake wax xariira oo dhex mari kara ma jiro hooyo xaawana afkeeday ka sheegtay maalin aan daawanayo waxay tiri maba aqoonin xaajiga waa run aabahayna wuxuu ahaa oday dhoofa oo dibadaha ku maqan ma fahantay reer Tokyo dhan waa ogyihiin aabahay wuxuu ahaa nin maqan oo sacuudiga jira sanadkii uu 2 bilood nagala joogi jiray ama 3 bilood wuuna noqon jiray marmar 2 sano naga maqnaan jiro wuxuu 5 bilood waxaan dhamayn ayuu joogi jiray Soomaaliya aabahay maba joogin wadamada Afrika oo dhan shaqo kuma leh Saudi Arabia aabahay mana is yaqaanin ana dhaarana ku jaamaca ku maray inay is aqooninba xaawo cad iyo aabahay maba is yaqaana mana is aqoon karaa waxaan ku weydiiyay oo kaleeto wax dhibaato ma ka soo gaareen barnaamijkan markaa ka hadashay iyo cadeemaha wax dhibaato ma ka soo gaareen maxaa kala kulantay yacni ma noo sheegi kartaa wax walaalay waxa waaye waxyaabo badan oo caqabado ah jira oo lagula soo doonanayo oo lagu leeyahay hadlin ha gelinin ha yeelin waxaasoo cagajuglayn inaan ka hadlo maanta ma jecli laakiin qof bini aadan ah oo dee run sheegay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markuu runta sheegay uu la yimid aayadaha quraanka dhibaatooyin fara badan soo waajahay waa ogtahay qof kasta oo ilaahay yaqaano oo runta sheegana horta waxa leeyahay waa waalaha sida rasuulka aniga waa waalayaaba ii qoranba ma waalid qof iimaan iyo diin lahaa tahay يعني قفك هدو إيمان ليه يعني وحبا قفك ما سمي كرتو waxaa la rabaa qof oo waalan in la iga dhigo oo la iska kay aamusiyo ama xabsi la igu rido ama moorfiina la idiro loo baahan yahay marka waxaas ma dhacayaan wararkaasna inaan ka hadlo hadda diyaar uma ihi marka maxaa kale oo weydiin lahayd walaale horta aamino meeshaan aan ka hadloosid waxaa waaye Facebook page ana iskale waxaan u samaysan yahay qof kasta oo dhibaataysan oo aan ila soo xiriiro barnaamijka markaan galay qofna waxba iguma siineenin qofna waxba iimahan balse arinta waxa ay dhaawacday waayeeladaas xanuunsan oo adigana aad soo aragtay oo maanta cholesterol haayo gacan iyo mitqaana iyo dhiikar ka dhaawacay oo salaadii weysaqaadkiiba dhib ku yahay oo ooynaayo oo dhibaataysan aan horta isoo gelaysa ani adina waxa ku soo geliyay waxay tahay aabahaagay ku dhalay oo qabri ku jiro in laga been abuurto oo dambi yacni loo horseedo oo aakhiradiisii la habaajiyo ayaa diidan tahay marka qof kasta oo dhib kugu haayo oo barnaamijkan kugu dhaawaco oo ku yiraahdo yacni maxaad u sameynay amba maxaa u yeelay
amba isku day waa waalan tahay yacni inaadan waalneen caalamka hadda waxaa dhegeysan waxaa dadka oo barnaamijkan inta fiirsanaya 100,000 way gaarayaan because hadda videogan video ka horreeyay waxaa maraa intaasoo 100,000 oo fiirsatay dadki way yaaban yihiin feedbackii laga bixinayo waxay leeyihiin war arrintan maxay tahay ay leeyihiin ma waalnid inaadan waalneen ayaan caddeynaynaa inaad xaq u dirir tahay ayaan caddeynaynaa marka ani waxaan ku dhihi lahay qof walba oo adi isku dayaayo inuu dhibaato ku geysto inaad ila soo xiriirtid ood ii sheegtid maxaa la dhahay tilaabo sharci leh in laga qaado aan kuu ballan qaada qofkaas qof magaalada muqdisho joogto oo ku hajuumi karto ama wax kuu geysan karto ma jirto mana jiri doonto mana waalnid qof waxaa tahay oo xaq u dirir ah oo islaan ah oo deriskeedii dadkii deriska ahaa aaba cadeyna adiga ilma xaaji bootaanaaba tahay deriskiyaaba cadeynayo oo yaqaano marka waa kaaga mahad celinaynaa wax walboo ku dhibaayo waa ka hadli kartaa walaashee arrintaana maxaa la dhahaya xataa ma rabna annaga inay dad walaala ay dhaawacyo kala geyso qabiil inay noqoto arrin qabiil inay noqoto xataa ma rabno meeshaan waxay taagan tahay gabadhaas Sahra Suudani la dhahayo inay fikradda gabadhan ka baabi'iso haddii ayadu ku shubto haddii ayadu ku shubin ay soo hadasho aniga beriyaanka ah ee tiraahdo is caddeyso ay mataqaanaa arrintan ay meel ka soo istaag sida adiga uga taagan tahay intaasoo keliya waa annaga waxaan rabno waa mahadsan tahay walaasheedii sida sharafta leh ood ii qiimaysay oo iila soo xiriirtana aadan kaaga mahad celinayaan qurxey waa mahadsantahay abbaay waa mahadsantahay maxaa kuu dhiman oo ka hadlaysaa marka ma macsalaameynaysaa dadkii mase weli waxaa kuu dhiman oo ka hadlaysaa wallaahi abbaayo intaan sheegi kara waa sheegay walaashayna waxaan leeyahay abbaayoy kuma necbi walaashayaan ahay aabbahay iyo hooyaday ku dhalay walaashay iga weynaa tahay waxaan kuu duudayaa cuqubo inay ilmahaaga ku dhacdo barnaamijka xakiimo abuukar iskaga har xakiimo abuukaraa la dhahaa xakiimo xaaji maxamed mar damba hadhiin intaasaan kula talin lahaa waxaan kaloo sheegi lahaa barnaamijka oo la qabanayo inayna noqonin wax cunsur inayna ku jirin oo aan la iscaayin ee qof kastaba fikradiisa inuu dhiibto oo keliya maya anaga waxaan wax u sheegaynaa oo keliya gabadhaas oo reerkeeda u baahan yihiin hooyadeed u baahan tahay iyo gabadhan walaasheeda inay iska ilowdo ay tiraahdo walaashaa ma ihi way ku dhaga adag tahay dhaga adeegaas inay dhaafto oo ay deriskii ay u sheegto ciddaasaa ku dhashay gabaray annaga waxba iskumanihin inay tiraahdo oo keliyaan rabnaa qabiil waxba kama gelin qabiil shalay ahayd dadka caddeynayay ayada ku reer yihiin way aamusi kareen derisay la ahaayeen marka qabiil wax arrin ah oo quseeya ma lahan waa soomaalinimo waa ehelnimo in mataqaanaa runta iyo xaqiiqda jirta la sheego intaas waa muhiimadda abbaay waadna mahadsan tahay aniga abbaay intaasaan sheegay ilaa 2015 ayaan sheekadan daba socday sidaa iyo nabadgelyo waana idin sheegay wax kasta ilaahay ha idin xafido anagana allahana xafido intii oo aamiin abbaay cid kastoo adiga dhib kugu wadana allaha kaa qabo allaha kaa qabto wax dhibaataana kuma soo gaaro saa jeceshaha ilaahay ha kugu nabadgeliyo kaay walaashay macaan كل waa maqlaysaan barnaamijka maxay ahaatay meeshuu maraayo qofka halkaas noogu jira waa Aamina Xaaji Bootaan oo ah walaashii sheegatay inay walaasheed la dhalatay tahay maxay ahaatay xaqiiqda dhabta ah iyo waqtiga ay la kulantay arrintaas oo dhan way inoo sheegtay insha Allah dadkii uu dhaafay barnaamijka gadaal ay kala soo qabsan doonaan amba ka soo celi doonaan meesha si kala soconaa markana waxaa waceynaa hadduu ilaahay yiraahdo hooyo xaabo oo rabno inay mataqaanaa ayadana ay ka hadasho xaalkeeda sidee tahay iyo gabadheeda waqtiga ugu dambeysay inay noo sheegto
aamino waa ka baxday marka soo gudbi insha allah ayeeyo. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة eedow dhiiba taleefanka si mataqaanaaye eedo waxaan rabnaa inaad xaawo maxamed jimcaale inaa waxaan rabnaa aa kusoo dhawaatid ayeeyo live aa ku jirnaa. waxaa kaa horeysay aamine xaaji bootaan oo saara suudaan walaasheed ah, waxayna caddeysay gabadhaas inaa adi dhashay, inaad hooyadeed tahay oo aabaheedna yahay xaajigaaga, oo mataqaanaa aysan xataa waxba idin dhex marin, oo su-aalo badanaa weydiinay oo ku saabsan amuu xataa dhala xaajiga. mayay tiri aabaheed ma dhalin, wixii dhan way sheegtay. marka adina waxaan rabnaa wixii aad gabadhaada siday kaaga maqan tahay, siday kaaga tagtay, inaad dadka u sheegtid. dadka kula murugaysan inay ku dhageystaan ay rabaan. magacaaga ku bilaaw. بسم الله الرحمن الرحيم. وحالي حاوم محمد جمعالي وعن جوغا انت كناي حمر وعن دقناي ولوداك الكيمو وانا قتكتي وانا قلقادي وحاي تكتم مريكنكا ناك شقا وبحدي ايدي وشقاي ربتي أنا كنت كل بركان تقالكم ما أدك بسنين وأم كتكتي وأديتك تو إلهي سمكي وكذا سجرها كبعد وابقى أطبع ووين وحريرة ما كهشين مركي صوب بحضي إلا أنت دي لسه حريرته. والله هل سنة كبدا لنا حريري قرته هل سنة حرير كهاي أنت كلوانا قوستي مركا هذا صدنا أنكو قايبها عنك سقالي لباتن هورت إلى ما بحدين صح كان صدق ما دوا بيسجدري سببته وحيمة ترين وقت sanadkii ma xasuusataa ee kasoo tagtay Soomaaliya. maxamed siyaad barre markii la diray gartay dagaalka maxamed siyaad barre markuu socday oo dadku kala qaxaasay ku tagtay, laakiin iyada waa la qaado nin gaal ha qaaday oo Mareykanka geeyay. sax iyadu markaas dhacda oo ogeed, laakiin maya ma gelin nin oy u shaqay jirtay oo Mareykana wuxuu ay gabadhaan walaashay u shaqay jirtay. markaas ay tiri abay anu shaqada waa ka baxay gabadha yaan ku geeyay asay iri gabadhaan abaad taqayleysay geey waana yartahay. waa ingiriisay ay taqeen ingiriiskii ku jirta 2 sano ay joogtay. markay 2 sano joogtay ilmihii yaaba jeclaad markii la kala carabay. ninku wuxuu yiri ilmaana gabadhaan ilmaana jecel bani waalidkaada ku ogol yaa ku imow gartay waxaan dhahay ma ogoshaa ma waa ogoleeyay waaya hada ogoshaa waxaan ku diidi maaye adigu ma hada tagta noo soo wartir noo soo dir oo aan naga maqnaani sax asaba telefoon la isku hadlaya kulli waa la ismaqla waana la isarkaa aye gabadha hadaan hal sano joognay waa nala hadashay, laakiin ka bacdi waa baan la hadli jiray gartay. marka waxay tiri markay ka tagaysa ana waa ka tagay nimanka Mareykanka waa ka tagay Canada galay maray soo dhaxday maxaa ka doontay oo ka jirta Canada waxay isaga joogaysa soo kan Mareykanka naagtii aan dagaalnay naagtii markaan dagaalano cidi la jiray naagtii islaanta yuhuud waa dagaalnay markaan dagaalnay waxay tiri waa ka carar hamin barkii aan carar 7 saac amal ka carreeyay. markaas waxaan tigid safaaradda Soomaaliya gartay xuseen koofi cadde
oo mariixaanka ayood oo haystay aan u tegay tiri intuu tegay waa ii soo dirtay waxaan u tegay tiri ninkaas waa i qaaday tiri ilmihiisa ugu diray gabadh in koofi caddaa oo xuseen ku dhalay hooyo ku diray ayuu yiri waa maasaan raacay tiri tareenaan hoos ka raacnay xaggaasaan tagna marka waa ii sheegtay waxay tiri mahaasaan jooga hooyo shaqadu waa yartaa laakiin hadda iskoolan gala iskoolkaasaan dhigtaa kabacdi gabartii waayba noqoto warkeedoo dhan baa weyn inay jirto inay joogto waaba weynaba war yaa muslima ummadana maxamed xaajir waxaa jiri gabartu waxaad laa male wax kuu soo jawaabaa male adi wax ma diri kartid oo maxmaysatid saasaa ma ku dhamayn ilaah sugudaan bisaga dhamaan goormaa marka hadda idinkugu soo xigtay ood maqasheen aniga maalin dhaweed sigtimaankii 15 bir camal mar laga joogo aan waxaan arkay midda dhaloo karo aan midaan anigu dhalay iyo wiil walaalkeeda waxay soo aadeen dad maxkamadda lagu haysta markaas waxaan aragnay yireen labadan gabdhood waana yaqaan midda wiilkuma yaqaan laakiin gabartu waa taqaanaa gabartaydu waa taqaan iyo ko isku haystaan arkay tiri xakiima dhaxashana la gelin iyo waana la gelin maasan kala qabsanay gartay dhaxashyaa la isku haysta reerkii aamino dhaxal naguma la dhehayso iyo saaroo dhehaysa dhaxal waa nagu leedahay oo aabbahaynaa dhalay gartay bacdaan ka soo galay waxay tiri waxaan iri tiri naya maxakima abukar haddii ka dhasheen taa xakima abukar ku aragtay beenta maxay u sheegaysaa mahaasaas qabsigu hadda la isku haysto waa halahaas nolol iyo geeriba midna kuma haysan haddana kuma hayno waaba naga maqantaa haddaa naftigeeda waxa loo iska wadwado oo bijibujira ujeedaa moogi wallaahi wax oo toos hadda ma haya xataa hadda maxaa fariin ahoo u diray gabartaada gabarteeda fariin waxaan u diraa hadday imaqlayso xaasidnimada iga dhaafto ha iisoo hadasho naagtaan waxba ugama baahniba waxay uga baahna ma jirin ayadaan u baahanahay waa inay iisoo hadashaa waa jeceshahay gabartaada inay kula soo hadashay hooyo ku tiraa waa jeceshahay intaasoo sanaana sugays waa jeclaa wallahi waa jeclaa maane aniga dhama quraarada way daydeen marka hadda ilaaba ihaayaba aniga dham waa ciil soo araaba ciilkan ka bixi lahayba marka khayr allah ka dhig maxir hadal hooy hadal marka hooyay macaantooy gabarteyda waan rabaa maalinaan rabaa laakiin ilaahay keeno hadda ilaahay keeni kare kulli dadka muslimka laguma dhibi karo ma la dhibi karo keen waxay ku naqanay ilaahay ku ogay allah noo soo adeego idanka ilaahay saa ilaahay awood saata ilaahay noo soo adeego muslimka hadda xaaladaada caafimaad see dareeme aniga naag oo hooyay macaanay aan sariirta iyo albaabka oo guriga ka bacda banaankaas fadhiisay si haddana sariirteedii imaahayso waxaad ku waa iska kase dhibkayga waa iska ilaahay ugu sheegaa moogiya waa ihaaya inta tabartee waa iluuha de ilaahasa loo sheegaa hadda anigu bini aadan maba dhigi kara ilaahay isku xag la ogin laakiin waxaan intaas inay dhibaatada iyada iila joogto qaladaa ku jirta saare maxaa dhahay hadda saare suudaani maxaa leedahay ayadana maxaa fariin u fareen saare suudaan horta islaan ma ahan islaan ma ahan ilaahayna kama cabsayso hadday qof ilaahay taqaana ay tahay yay bini aadanka la raad allaha boqorka oo xalqay hadday ay ka cabsanayso gabartayda ay dayso daysa gabartayda waa iyada hayse qof kale ma hayse dhib hadda u soo gaarana hadda iyadaan u haystaa
hadda kiyoro waxa ka weynaaba yaalba hadda haddii wax gaaraan xakiima naagtaas horna waa u haystaa haddana waa u haystaa dembile waa iyo waa u haystaa maba dhaafaan dembile waa naagta aniga cayday dhaysa aabaheed oona isaqaanin oo ilaahay og yahay oo rasuulku og yahay oo malaa'igtu og tahay inaanan arqaanin oonan arkin weligay idhahayso aabahe ayaa ka dhalay soomaali maaha kaas aqli socda maahan aqli khafiifa waa kaas dulmilay ilaahay ka furata rasuulkiisa ka furata shaqa oo shaytaan ku shaqaysa ana ku shaqay jiray ku shaqaysa dulmi waa waxaso inugu salaamad adigu waa joogaa ma sheegno meeqa soomaaliya nala joogto meeqa soomaaliya naagban meeqa soomaaliya aso naagban shaydaman ma nugu haysato waa mudariskeenna eed ajirisin maanahay dariskana waa la xiseeya maxay ugu haystaa gabatay waa qalad dhaxalkeeya aabaheeyay leedahay waxaa ka dhalay maxay ahayd iyadoo naag waxay ahayd ka dhalay aniga ii dhahay iyo dulmi aflagaado waa in gabadhaadi la qaato haddana lagu sii aflagaadee adoo waayeel ah haddana xanuunsan oo mataqaanaa sharmuuta mateed ilaahayna kaama dhigo oo inta ninkeer ka tagtay ninka maya ilaahay igama dhigin laakiin dowlimile edab daraa iga dhigay iyadaa iga dhigtay maahayna aniga soomaaliyana haysno soomaali kalena haysno gabartayda haddii dhib yar soo gaarana iyadaan haysnaa ayadaan haysnaa xooga ii sheegana inaan jifay og tahay maana sahro xoogaad ii sheegatay laakiin xooga ilaahay inuu kuu sheegtan kuu sheeg rabbigay soo xooga igu sheegtaa kugu sheeg anwac lama qaba lay qababa awada haddaan dhidho intaas iyo lay qabsama waxaa taa shaydaan ilaahay ka furata rasuulkiisa ka furataa tahay oo fircoona haddana fircoon hayd maxaa kuu geeyey xakiimaabuur waa ii tiqiin anugu waa ku aqaan hadda haddaan ku arka inaana ku aqaanin hamoodi waa ku aqaanaa adiguna way taqaan maxaa sirtaas iyo beentaas iyo dulmigaas keen maxaa keena waxaas shaahid ilaahay maxaa keena waxaas soo naceeb iyo dulmi iyo أنا ما أقول كذا أدين كنا معاني وما تنتهين كن يكوجر أنت مسلم أو أمد بدأ أمد ذلك يقدر نقطي أجر إيه حسنات الله سيا نبتودنا لا في هدر على شيء دال كرو دال كو إيه مجوج إلى قبل توي كم قط قرب كان تاجنا إن شاء الله إيد ayadana koley waa isdhegaysane saharana naagta la yiraahdo way soo hadashay way soo wactantay barnaamijkan way daawatay barnaamijka ka horeeyay daawatay way soo wacdantay waxayna dhahday maxaa aniga lay fadeexeynaa gabadhaas aabaheeyaa dhalay marka wayna la socotaa wayna daawanaysaa codkaaga way dhegaysanaysaa wayna la socotaa waxna uma gelin فريا فرح ده اسكو منين ابيت انتو ولا جرا قرب كيغو فديا مانا هايو مانا جوجو مانا اهان اخر الله سو قبس ماي ودادك سنت الله نحريس انيغا نكاس ودادك اسلام دولمي ما اسوغنا اخرو كاده اخرو جرا انو نكاس ما ناي كما دغ انو كما دالي وعبا يمجين ومرت تجين ابو بكر احمد اقبا مانا اقبا ودادك اسلام الاخري من امهاش أبوك أحمد ما هذي كريا أبا ما هذي كريا أشوف هذا ومن مالك وحمد مقالي هذا أنتوا وحدي كرو ما في هذا أديب dhib ma laha hadlaa si codkiisa leeyaha dhiibto waxaa gabartayda ku taagan yaa waayo ma ka leexaysiin base ka leexmaysiin
iyo soo kacan umahaya inaana keeraynaana ilaahay u ogyahaye diinta islaamkaad ka baxdeen haddaad sheegateen mana idin aqaan meelaad ka timideenna magaane nambarkiinana waxaa lagu hayaa meeshan waan ku soo qabaya baashaxmeedo markan nijaasa tiri gabarta muslimka ee ka leexatana qof damo haysaa ma jirtee gabarta waa ka leexanoo islaamba ilaahay nima ku imaada amba maaragta manafaad naba ku imaada meel ladinkaga herana ma jirto meel kalaba kastaba oo dowladda kastaba waa ku soo dhahoonay dhawaan waxay ku taagan inaan nafta kaga goyhayna alla igu ogyaanoona ka herayn marka amoo nijaasa meelan agu la buqbuqleeyahin anigu dhegaysama kareen haya aaba waa maasinta aaba may maahina waa xaq waaye wixii muslim usoo gurmaya حقوق الآدماء إلهي دورة يا مسلم قال وهي هذا وتوصل وعمس دورة إلى وأمته وصل ما يعيش وهذا يجعله لقال أنا الله وأركان وأمته أنا أسا الدكتور المهني يدكتور لما نحن كفدا شغل ما دهنا وورا أنت إنسان ما يرحل تكيد أكل هذا أكيد hello magacaaga u sheeg magacayga abuukan axmed maxamuud waay xakiimo maxaa u tahay dheh xakiimo maxaa u tahay xakiimo abuukan axmed maxamuud aa la yidhaha maskiin ilaahay duqanaha caafiyo taasaa cuqubo ugu filanbo cuqubo intaasaa ugu filan maxaa u tahay war xakiima abaherana abahawaay adu taxayta yaa igu haysta qofta igu haysta sheesheer earphoneka maka maqlaayo awoowe waa xoogaad iga jigaa abaayo ma garatay aabo waa fahma roobna waan ugu daa waa idinka baxaa qadka insha allah caafimaada idinkaga tegay insha allah xaqa ilaaha soo ifiyo ayeeyo iyo awoowan waa iska xanuunsan yihiin ilaahay mataqaanaa adaa mas-uulka cidda ee allah kula garab gala insha allah waa maqla waa maqla way soo gaara soo maa maasha allah maxamed waay aniga haye walaalkay kheyr idinkaga tegay waa ka baxayaa barnaamijka intaan rabay way ka hadleen ayeeye iyo awoowe marka wixii soo saaciiday insha allah waa iska warhaayeynaa waa ujeediin xaaladda meeshay mareyso xanuunkaas waxaa dareemi kara qof kasta oo damiir leh ayaa dareemi karo waa aabbo waayeel ah iyo hooyo waayeel ah oo mataqaanaa maanta garabkii ay sugaayeen meeshaas ka taagan tahay barnaamijka waa ka baxaa insha allah haddii ay ku jirto gabar ay soo qaba igu dhahday oo ayadana meeshaas deganeed dadka dhahayo dhiig maa la kala qaado dhiig intee lagu qaadaa qofkii hadduu kuu taagan yahay adi ma i dhalin soo bax DNA aan kala qaadana dhiig ka qaadi kartaa laakiin qof fakad ah oo soomaalida taqiina oo kanada joogtay markay arkeen dhaheen kaala ka ordayso ka dhuumanayso qofkaas dhiigeeda intee lagu arkaa horta
dhiigga ma ahan iska qaad. dhiigga wuxuu u baahan yahay qofka dhiigga laga qaadi lahaa inay kuu taagan tahay xaadir kuu tahay, laakiin qofki maba ogolabo inaa dhiig laga qaado, inay gashaa ka horeyso. qofki inay ogoshaha ka horeyso ay dhahdo yes adika ima dhalina dhiig aan isku marno, laakiin qofkiyobo howshaas dhan ba aan ku jirin see loo dhihi karaa marka dhiig hala qaado? dhiig la qaadi kara malahan. hadday imaatay tiraahdo layma dhalo layma dhalin dhiigaan maraa yes, laakiin dhiigiiba mala arkaaye qofkiyaaba gacanta lagu heyni soo maha. toronay joogtaa, torono kanada toronay ka joogtaa. waxaan fariin u dirayaa meeshaan Sahra Suudaan inay soo hadasho, gabadh islaameedna iska soo wareejiso, fikradda qaldanna ay iska tirtirto, ay uga dhacdhicisay inay la dhalatay oo aabaheed dhalay. waxay leedahay hooyadaasaa dhashay, maxaa la hooyadii waata waayeel waaye. walaalay qof xijaabanaa tahay, qof oolaad lahaa tahay, qof damiir la noqo, islaamnimada fiiri. inta meeshaan ku jirtay inta sheergaray doonta habaarkooda ku yaalo. sababtu waxay tahay dadkaas waayeelada aa ka oysiisa, aa ka cuqdadaysiisa, aad maskaxda ka waashe. marka habaarkaas adigu ku yaala gurigaagay ka shidan tahay. walaalay macaanay intaad isleedahay maba aqaan ani gabadha arsaaqada aad ka raadinaysid maba kasaa. inta aad iska leedahay gabadhaan neeti aabahaana dembiyaa ka gelaysaa, aabahaagii dhintay oo aaqiro jira dembiyaa ka gelaysaa. waxaa leedahay aabaheyaa dhala, aabaha ma dhalin, aabaha ma dhalin. nololaa haystaa, guriyaa degantaa, waa shaqaystaa. waxaa dhahda waa shaqaystaa, lacagaa haystaa, hantiyaa haystaa, maxaa uga baahanahay? aabaheyaa dhala. waxaad uga baahantaha aabaha u dhala maxay tahay? aabaha aamin oo dhala oo ku jecla, aabaha oo ku jecla ku dhoweysaa goysee. aamina maxaad u goysa? afrikay joogtaa ma u goysa? aamina xiriiri, aamina walaalnimo kaaga baahan, aamina waxay kaaga baahan tahay daryeel, inaad mataqaanaaye ka warheysid nolosheeda iyo walaashaa garabnimo inaa istaagto. haddaa walaal jeceel rabtid aamino raadso. aamina u baahan in la walaaleysto.